السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنتو عن ونعكسن دمان أخيار تعوذ إن نجد جيسن إساي نجد أون إساي رمضان كريم. وحد كسر واتان برنامج جارة ومجد عيسوي هاي كلمات العلماء يكون رمضان وحب برنامج كمرتي إنه هو الشيخ محمد عبد أمه يوم الشيخ عبد القادر بوبي. barnaamijka waxaad idinala socotaan TV-ga caalamiga ee Somali Channel xaruntiisa magaalada Nairobi. Mashaayikda maanta waxaan uga faa'iideysan doonaa oo Sheekh Maxamed Cabdi Umar noo jeedin doona ahkaamta ay leedahay Ramadaanka, halka Sheekh Abdul Qaadir Boobe oo asagana nooga faa'iideyn doona fadliga Ramadaanka. Marka hore ku soo dhawaada. waxaan ku hormaraynaa insha Allah ta'ala Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo noo soo jeedin doona أحكام تأيلها هي رمضان فليتفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد إلهي ما تسكال تبارك وتعالى ينصر تقري إن نسوق عنه بشبر كيسان رمضان. waxaan weydiisanaynaa Allah tabaaraka wa tacaala inuu ina waafajiyo khayrkeeda inaga dhigo kuwa saami wanaagsan ka qaata khayraadkeeda iyo naxariista Allah tabaaraka wa tacaala ee bishan Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu adoomadiisa u qaybinayo. Ahkaamta bisha haddii la yidhaahdo way fara badan tahay. waxay bisha أعمال فربضان أيها لينو تشيدي كمي تاهي صونكي كمي دي هاي كمي تاهي صدقة دي كمي تاهي وبيش النبي صلى الله عليه وسلم ديق ديسا يوحد حنتي سؤال بيوبنيت أي كمي تاهي عمره دي وبالعمره دو أي فضل السيادة لا هاي أي كمي تاهي قرآنك إي أخرس كيسة وبشي قرآنك مدو البنا إي كم تهي صلاة تراويح دا وبينك لتكني مدو البو قيبها كم دا وحيلا دا هاي أحكام قونية مرك أحكام تبيش هدي اللي لهدو قيبها صدن مدو البو حوبة هنايا إن دول استاغو لفافاهيو أحكام تسلقهم. waxaan safilayaa ujeedadu iyo qasadku inuu yahay ahkaamta soonka markii la yiraahdo waa cibaadada bishani ay khaas ka la tahay soonka fariidada ah ee waajibka ah ee laazimka ah. Ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa isla doortay ama isla doontay soonkaas tiirka afraada iyo bishan Ilaahay tabaaraka wa tacaala baa isla doontay isagaa isku khasisay soonkaas waajibka inagu ah bisha barakaysan. طبعا fadaa'ishiisa iyo wixii ajir laga helayo sheekha ka hadli doona, laakiin si kooban haddaan u tilmaamo ahkaamta laga maarmaanka waxaan u qaybin karnaa laba qaybood. qayb la rabo in lala yimaado iyo qayb la rabo in la iska ilaaliyo. tiirka soonkuna labada qodob buu ka kooban yahay. labada qodob ayuu ka kooban yahay. qodobka hore oo ah waxa loo baahan yahay in la yimaado waa niyada. habeenkii in soonka la niyoodo ama la niyeysto waa qodobka ugu horeeya. haddii ruuxa ay niyadu dhaafto oo habeenkii intaan waagu bariyo inuusan niyeysanin maalinkaas soonkiisu ma jiro, soonku maba guntamayaba.
وانا معنوه نبي تلمامه صلى الله عليه وسلم مركو يلي من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له روحي انت واقو بريين أن يسنين صون ما لها أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم marka niyadaasi waa asaaska cibaadada soonku ay ku guntanto ama ay ku xidhanto waa niyadaas niyadaana sida culimada qaarkood qabaan waxaa la rabaa habeen kasta in la niyoodo markii gobolku dhaca laga bilaabo oo la afurayo ilaa laga gaadhayo aadaanka salaada subax inta u dhaxaysa ayaa waqtiga niyada ah muddo ka mida xilligaas xataa ilbiriqsina ha noqotee inay qalbigaaga gasho inaad berri soomayso niyadu waa intaa niyadu sideedaba ma aha hawl ilaa acmaasha شغل مالها جسر خير الله يدسي بالغين هستني قبط نيده وعمل عملك بني آدم كو سميه أيا حبنه كلاليه عربكو شقدي سوينو هضلو gacmahana shaqadooda waa inay wax qabtaan lugahana shaqadooda waa in lagu socdo indhaha shaqadooda waa arag dhagaha shaqadooda waa maqal niyada waxa iska leh qalbiga iska leh waa amalul qalbi waa shaqo uu qalbigu qabto carabkana shaqo kuma laha saas daraadeed culimadu dhamaantood waxay isku waafaqsan yihiin niyadu inay tahay qasdul qalbi ama iraadatul qalbi ama azimatul qalbi waa go'aanka qalbiga sidaasana nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa ay uga sugnaydo wax inta ka siyaadsan nabiga lagama hayo sallallahu alayhi wasallam isagoo niyada ku dhawaaqay nawaytu sawma qadin oo kale yiri in carabka lagaga dhawaaqo waa mas'alo gadaalka timid oo culimada qaar kamida fuqahada ah ayaa xilli dambe yimid oo markaas ay yiraahdeen malaha waxa qalbiga ku jira in carabkana lagaga dhawaaqa fiicnaan lahay si ay isu xoojiyaan waa culimo gadaal ka timid oo aata saddexdii qarni iyo aan ahayn ayaga dadaal bay ka ahayd culimadii arinta keenay laakiin markii lagu noqdo daliilka lagu noqdo haday khayr tahay nabi maxamed baa sheegi lahaa sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii baa laga soo gaari lahaa saddexdii qarni baa laga soo gaari lahaa حتى أئمة أفرطة الإمام أبو حنيفة مالك شافعي أحمد يا وقت يوديتون لما أقول إني يعرفك لغا دواق أو واحد بكيب marka waxaan ku gaabsanaynaa intii nabiga ka sugnay sallallahu alayhi wasallam qalbiga inaad gashato intaas muhiim qodobka labaad ee soonkeena una laga maarmaan ku ah wax weeyaan in aan iska ilaalino wixii soonkeena dhibaato u geysanaya waxyaalaha soonka dhibka u geysta waa laba nooc marka qayb soonkay jabisaa qaybina soonka ma jabiso soo qaleen lagu dhihi maayo laakiin ajirkii soonkaaga ayay dhaawacaysaa ama dhimaysaa ama baabi'inaysaa labadaaba in la iska ilaaliyo waa qaybta hore soonka jabinaysa way kooban tahay waa wax yar oo la qaban karo waa inta badan waaba naqaanayo muslimiintu way yaqaanaan waa cunitaanka iyo cabitaanka talabaadi wax weeyaan waa in aad xididada ka qaadato wax cuntada iyo cabitaanka oo kala ah oo maalan jidhka dheefinaya cuntadii iyo cabitaankii lagaga kaaftoomi karo sida faleebada waxaanu nidhaahno glucose biyaha laga qaato xididada jidhka la siiyo dadka nafaqadu ku yaraata iyo dadka koomada gale iyo lagu duro ta noocaas oo kale ah way jabinaysaa soonka sababtu waxa weeye cunno ma aha cabitaanna ma aha laakiin macnahoodii oo kale leedahay
waa qodobka labaad ee soonka jabiya waa qodobka saddexaad ee soonka jabiya waa inuu ruuxu kas isaga matajiyo haddii mantaku ku soo dhaafo isagu iska yimaado waxba ha celini soonkaaga waxba yeeli maayo laakiin haddaad adugu sabab aad leedahay aad ku keento mantaga ku keento afkaad gacanta geliso aad iska soo saartay sabab kaleood leedahay baad calooshaad majiirtay oo tuutuujisay oo markaasaad soo baxay haddii adugu aad iska soo saarto mantagood sabab u noqoto soonkaagu waa jabaya waman istaqaa'a falyaqdibu nabiga sal lla alay slam ruux iska mantajiya ha qalleeyo waxaa kaloo soonka jabiya galmada ragga iyo dumarka dhex marta iyaduna soonka way jabinaysa weliba jabintay soonka jabinaysa iyadu waxay la dheer tahay kafaaro culus baa ka laasimaysa kafaaradaasi maxay tahay waa inuu ruuxii sidaas sameeyey xoreeyo addoon xoreeyo qoor inuu xoreeyo dabcan hadda ma jirto haddii uu waayo ama ayna jirinba ama markaa uu kari waayaba waxaa loogu bedelay 2 bilood oo isku xigta inuu soomo ramadaan markuu dhammaado 2 bilood oo hal maalin inuusan afuraynin waa inuu isku xijiyo soomo haddii uu kari waayo waxaa loogu bedelay inuu 60 miskiin quudiyo mid walba uu siiyo wax hal mar deeqi kara taa waa kafaarada ruuxii galmo ku jabiyey soonkiisa waxaa kaloo looga baahan yahay inuu maalinkii uu jabiyeyna soo qalleeyo waxaa kaloo looga baahan yahay inuu towbad la yimaado ilaahay dembi dhaaf weydiisto yacni waa soonka wax lagu jabiyey waxa ugu culus waayo waa galmada soonka way jabinaysa waxaa kaloo jabinaya culimmada badankoodna ay qabaan inuu ruuxu biyaha iska keeno shahwada inuu iska keeno galmo isagoon samaynin inuu shahwada iska keeno ama gacanta ha isticmaalo istimnaaga waxa la yidhaahdo ama soomaalidu siigaysiga tidhaahdo gacanta ha isticmaalo ama taataabasho uu la sameeyey xaaskiisa ama dumar la sameeyeyba biyuhu ha ku yimaadaan sabab uu leeyahay hadday biyuhu ku soo baxaan iyadana inuu soonku jabayo culimmada jamaahiirtooda qaba waxayna leeyihiin oo u daliishanayaan nabiga sal alla alay wasalam wuxuu sheegay allah tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlahayay soonka aniga ayaa iskale abaalgudkiisana anaa bixinaya markuu alla yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa cilo looga dhigay yadacu tacaamahu wa shahwatahu min ajli addoonkaasi cuntadiisii iyo shahwadiisiiba aniga dartay buu uga tegay marka shahwada waxaa soo gelayay leeyihiin galmadiina way soo geli in shahwada qaab kale lagu gutana way soo geli saas daraaddeed soonka way jabinaysaa bay u badan yihiin biyaha oo layska keeno waxaa ka gedisan haddii aad qarowdo ama riyooto ama sabab aadan adugu lahayn biyihii iska soo baxaan markaas ma jabinaya waxaa soonka jabiya sidoo kale dhiigga caadada ah ee dumarka ka yimaada iyo midka dhalmada isagana xadiidka nebiga ku sugan sal alla alay wasalam hadday haweenuu caadadii qabto ama dhiiggii dhalmada ay qabto soonku u guntami maayo ma xidhmayo iyada oo sooman hadduu ku yimaadana soonkii markaaba wuu jabaya xataa afurkii oo wax yar ka laaban yihiin hadduu ku yimaado maalinkaasoo dhan waa jabaya waa inay dib u soo soomto soo celisa waay marka way afurayaan dibna way ka qallaynayaan waxyaalaha soonka jabiya waxyaalahaas waay waxyaalo badan baa jiroo kale oo ama fuqahadu isku khilaafsan yihiin ama caamaduba isaga haysato inay soonka jabiso laakiin aan soonka wax yeelaynin cala saxiix sida xooga badan way ka mid yihiin maalan dhiig in jidhka laga saaro hadday jidhkaaga dhiig ka yimaado ama ilig baad iska saartay ama adoo cadayanayaad maalan dhiig kaa yimid ama waad gorortay ama dhiig baabad saartayba sidiisaba ama ruux aad u bixisay soonka ma jabinayo cala saxiix sida xooga badan maxaa yeelay way jiri jirto soonka waa jabin jiray xilligii hore laakiin waxaa ka dambaysay inuu nebigu fasaxay oo dadka sooman inay istoobi karaan ogolaaday nebigu sal alla alay wasalam taasaa dambaysay saxiixulbukhaarigana waxaa ku sugan inuu nebigu sal alla alay wasalam isagoo sooman istoobay
marka dhiig jidhka ka soo baxay ama laga saaray soonka waxba yeelay. waxaa ka mid a waxaan soonka waxba yeelaynin inaad irbad daawo oo caadiya isku durto. waad xanuunsanaysaa, xanuun ahaan baad irbadda u qaadanaysaa, maaha xididka in lagaa siiyo dheef jidhka dheefinaysa, taan ka soo hadallay maaha. laakiin irbad xanuun loo qaatay, maalan antibiyootig oo kale, xanuun baabi'iyo oo kale, in jidhka lagu duro, wax dhib iyadana male, soonka waxba yeeli mayso. waxaan soonka waxba yeelaynin in waagu kuu baryo adigoo janaabo qaba. habeenkii baad riyootay ama xaaskaagii baad isaragteen, adoon weli ka qabaysaninoo janaabo qabo waagii kuu barya. waad iska qabaysanoo salaadaada subax baad u qabaysan, soonkaagana waad wadanaysaa. nabigeennaa sidaa samayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, oo ay dhici jirtay sidii caaisha iyo warinayaan, isaga oo janaabo qaba waagu u baryi jiray, waa qabaysan jiray, soonkiisana waa wadan jiray nabigu sal alla aley wasalam. waxaa ka mid a waxyaalaha aan soonka waxba yeelaynin inuu ruuxu candhuuftiisa liqo. candhuuftu waxba yeeli mayso. sidaas daraaddeed dadka qaar baa iska imtixaanan oo maanta dhun candhuufta tufi un yani jidkii iyo goobihii laysugu imaanaya dadka ka wasakheeyey, isagana jidiinkiisii iyo cunihii ka ingegay. maxaa looga baahan yahay? iska liq candhuuftaada. yani wax la diiday maaha, soonka waxba yeeli mayso. waxaan soonka waxba yeelaynin sidoo kale xanjo aan lahayn dhacaan inaad calaaliso. xanjada geedaha laga soo gooyo, middan macaane magaalada maaha, oo aan candhuuftaada waxba ka bedelin. haddaad maanta dhan calaliso, soonkaaga waxba yeeli mayso. inaad cunto dhadhamisood iska tufto, sida dumarka afurka diyaarinayoo kale intay dhadhamiyaan iska tufaan, soonka waxba yeeli mayso. waxyaalo badanoo waxaa jira sidaasoo soonka aan dhib u geysanayn. inaad qabaysataa ka mida, inaad cadayataa ka mida, gelin hore iyo gelin dambaba, soonkaaga waxba yeeli mayso. marka waxyaalahii soonka jabiya waa intii horeen tilmaannay. waxyaalahan kaleo dhan soonkeenna waxba yeeli maayaan. qaybtaasi waa qaybtaa. waxaan ku dari lahayn soonka jebintiisa waxyaalahaan sheegnay inay soonka jebiyaan, waxay ku jebiyaan 3 sharti markii la helo. shardiga koobaad, shayga soonka kaa jebinaya markaad isticmaalaysay waa inaad isxusuusnayd inaad sooman tahay. haddaad ishalmaansanayd soonku kaa jabi maayo. matalan adoo ishalmaansan inaad soonkaagiiba halmaamay baad cuntooda cabtay, nebigu wuxuu yidhi sal alla aley wasalam, waa quud iyo cabitaan alla ku siiyey iska cun. soonkiisa waa macnaa wax weeye uusan jabinin waa inamaa atcamahu allahu wasaqaa. waxaa la midataa adoo ishalmaansan haddaad iska mantajiso, adoo ishalmaansan haddaad reerkaaga u galmooto, haddayba suroobi kartaba way dhici kartaa soo maha. waa wax suroobi karaa haddiiba cuntadii laysku halmaamay, tanina waa laysku halmaami karaa soo maha. marka adoo ishalmaansan haddaad reerka barakayso iyadana sidoo kale waa soonkii jabi maayo. laanna wax weeyaan wixii halmaan loo sameeyey ummaddan ilaahay waa ka kor qaaday tabaaraka wa tacaala. waxaa la mid ah shardiga labaad ah, markii aad waxaan soonka kaa jebinaya samaynayso waa in sidoo kale aad aqoon u leedahay shaygani inuu soonka jebinayo. haddii ay ismoodsiis kugu dhaco ama jahli kugu dhaco, markaa soonku jabi maayo. laba mid bay noqonaysaa, inaad xukunkiiba jaahil ka noqotoba iyo inaad wakhtiga jaahil ka noqoto. ta wakhtiga maalan waagii baad isleedahay weli ma baryin, waxaad moodaysaa inuusan waagii weli baryin, waad iska cuntood iska cabtay. aadaankii dambaa waxaad u qaadatayba inuu yahay kii hore, markaasaad iska cuntay. adoo cunahayaaba lagugu aqimayba. adig maxay kula tahay inuusan waagii weli baryin? soonkaaga waad wadan, laanna ismoodsiis baa kugu dhacay, jahli baa kugu dhacay, wakhtigii baad jaahil ka noqotay. waa arrintii ku dhacday saxaabigii Cadiy ibn Xaatim radia allahu tacaala canhu ardaa, markay soo degtay aayaddii muxuu ahay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri. aayaddaasi markay soo degtay baa waxoogaa fahamkaa la khaldamay, markaasuu waagu baryay buu iska cunay. nebiga markuu yimidna arrintii buu saxay, soo qalleen lama dhih. waxaa meeshaa ku imaanaya saxiixulbukhaariga waxaa ku yaala nebiga sal alla lay slam saxaabadiisa maalin maalmaha ka mida iyagoo sooman ba waxay moodeen inay qoraxdii dhacday, way afureen. markay afureen kadib waxay arkeen qoraxdii oo bannaanka taalla. lama dhihin soo qalleeye,
maxaa yeelay ismoodsiis baa ku dhacay. qodobka saddexaad ama shardiga saddexaad markuu kaa jabayo soonka waxyaabahan ay kaa jabinayaan waa inaad khiyaarkaaga u samayso oon lagugu qasbin. haddii lagugu qasbo cala saxiix soonku jabi maayo. midaal waxaan u soo qaadan karnaa ninkii xaaskiisa iyadoo sooman intuu u yimid xoogay, xoog buu kaga qaatay, wuuba qasbadayba, waa miskiin. marka asagaa soonka ka jabi, isagaa kafaaro laga rabaa. miskiintan waxaan leenahay soonkaaga iska wado iyada. leesh laanna waa mukraha, waa la qasbay. ummadana sideedaba qasabka waxyaalaha ilaahay ka kor qaaday buu ka mid yahay ikraaha. saddexdaa arrimoodba laysuma qabto. shuruudaha saddexdaa loo baahay marka wax shaygu markuu soonka jabinayo in laga helo. waa inaad xusuusan tahay, waa inaad garanayso aqoon darri ismoodsiis kugu dhicin, waa inaad khiyaarkaaga ku samayso oon lagu qasbin. haddii uu waqtigu laaban yahay waxbaan ku dari ma dhammaad. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. هذا يوم هتسني الله سبحانه وتعالى أجري حسنات عن السكوب إن الله كسيه مركنا وحنا كسر بين يا شيخ عبد القادر بوبة وأسكنا نوجه الدونا فضي ولي يا رمضان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بشان فضلك عيلة ضحي يا مكانة يا بوسك إلهي سبحانه وتعالى دقي أدلة كسر أرتي مسو كوبي كرنا حافظ لي أغفلا وبشي إلهي سبحانه وتعالى أدورتي قرآن كيسين سودتيو وحي كيسا يفرينتي خلقي لقارسين يبشي الله أدورتي وي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قضبك الله بعد وموسم الغفران وبالله سبحانه وتعالى أقول لك لي أضمده هذي الدرتي يجو أمر كيس الرميسان أي صومان دنبيدو ذا إلهي سبحانه وتعالى ونافيو الدرتين أي صومان. حديث أبو هريرة أمهات الستة لما أنتم ذيورين يا النبي عليه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روحي الدرتي أصومه واجب كيس إسقى الرميسان صومه إلهي سبحانه وتعالى أنا عبادة أبر احترية الله وحودا بدافع دنبي سيهر أيو الله سبحانه وتعالى أدافع والسقائرته لكن كبائرته وحي أباهنتها يتوي أباهنتها. فرصدا إلهي سبحانه وتعالى عمري وكبسه قارسيي عافماتك روحا كفى إذا النبي وحوت المام الروح أيام ضر أي كل عضي إنويه. حديثك ابن حبان يا ابن خزيمة يا يورنا غير كود إمام أحمد كعب بن عجرة نبي صلوات الله وسلامه عليه صدح ذي شير مركو منبر درجات كيس أوفولي وحكم ذا النبي وحولي جبريل بائس وبنبحي وحولي بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. الله فوقي حريستي سهكديريو روح إلهي سبحانه وتعالى عمري عافي ماذا رمضان وكوغارسيي أو موسم كأن لو دم بدافين. فضايشة بشان وحاكم ذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ونوت المامي شياطين تالحرحرا شنده إلهي سبحانه وتعالى البابدي ذا الفرا نافتنا الله سبحانه وتعالى البابدي ذا وحرا إلهينا وحاقو سبناتي هبين كخير بدنكم بالله. حديث كإمام الترمذي يا النسائي يا أحمد الورني يا حاكم من حديث أبي هريرة النبي أمضى مركو فرينت وقارسين يحولين أتاكم شهر رمضان حيدين بشهر رمضان وشهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم لله فيه ليلة خير من 1000 شهر. intaasi waa intaan soo tilmaanay haddaan hore uga socono. waxaa ka sugan nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiis tirmidi iyo xaakim ay warinayaan
إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين شياطين تالا حرحرا ومردة الجن جنك كودي مدح أدكا خبرة بدناية ددك باديين جري هو صالح الحرا وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة حليه النبي صلوات الله وسلامه عليه البابدا نارتا أيال حرحرا البابدي جندنا والله فرفرا إلهينا وحا سبحانه وتعالى حقيسا كدواق ملقاس دنبال إيا فرين بو خلقه قارسين إياه وحاوليه هي ملقاسي روح خيرك ضلبي وخيرك سو قابل اسبابتي خيرك أتكوه للهيد ولقو دياري فرصة كفائديسو روح الشركة ضلبي ونشركي قابسو اسبابه الشركة أتكو قاري لهيد يعني والله حرحري وإلهي سبحانه وتعالى كامل وحاكوصغا بريدا لأجيبا إلهي الضومضة مؤمنين تانو قورتو ذو حرية حديث بزاري أحمد يقولين من حديث جابر نبي حليه صلوات الله وسلامه عليه إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة في شهر رمضان إلهي وحاوصغ ناضي ضدو قوره ذا النار تأو كحرية إلهي قورتين النار كحرية habeen iyo maalin walba liisba ilaahay loo gudbiyaa dad ba ilaahay subhanahu wa ta'ala oo habeen iyo maalin kasto bisha ramadaan kamid ah qoortooda ilaahay naar uu ka xoreeyaa oo ka samatabiya ka badbaadiya nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi wa inna li kulli muslimin da'watun mustajaba ruuxa muslimka qof kasto muslima bisha ramadaan waxa uu sugnaatay alla bari ilaahay uu ka aqbal marka maantana waad soo baahnay fursada aad afurayso sambuuskan iyo mandaasigan iyo waxan hortaada Allah isku mashquulin ilbiriqsiga inta aad afurayso ilaahay baahidaada iyo dantaada iyo xaajadaada u bandhigo waa fadliga bishan ay leedahay bariyada la ajiiba qodobka xadiiska ku xiga hadaan ku soo gabagabeeyo si aan ugu banayno waqtiga waxa uu qofku mutaysanaya oo yaani marka haduu bisha ramadaan uu soo waajibaadkana uu la yimaado inuu kamid noqdo min as-siddiqiin wa shuhada hadiiska ibn Hibban fi zawaidihi ya bazar ay warinayaan min hadiisi Amr ibn Murra al-Juhani ayaa wuxuu leeyahay jaa rajul ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala ara'ayta in shahidtu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah مجالستي نبي محمد أمد عيالكي صافقة هو كورابيني يا صحابة هو كتربيني بانيمي وحول هدان توحيدك قرائي وحرم وصليت الصلوات الخمس شنت صلاتنا أنت كذا وأديت الزكاة سكدنا أنقت وصمت رمضان وقمت هذا مش رمضان صومه فقمت هبين كنا قيام الليل الآن استاقوا محانا هانيا فممن أنا قال من الصديقين والشهداء صديقين تأي الشهداء كمد نقونس أما اللي تشركوا دي وكلاد نقونس سيدة إلهي لي ومن يضع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما إلهي بفضله ومنه وكرمه وإحسانه وبكجارسين كرم أدلو تربضا باقوسو أرورتي لكن إن شاء الله تعالى سوق بها ليلي هاي إن شاء الله تعالى مركا فضلك بيش نسو كوبي كرنو وبيش خيراتك وبيش إحسانك وبيش داقضة وبيش قرآن أخرسك وبيش ذكرك دعاء وبيش هدي إلهي كورني هاي شعار كيدو أها يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر وخصند اللغو فري والروح ولباح وحا كرته وكهلي قرآن أخرس كرد صوم كرد صلاة الليل قيام كرد قف مسلم هذا فرس كرد هدي إلهي كورن يدعو يا الله بري كرد عمره كرده خصنا داوحي كردتي ومن بعد الله يكتس سبحانه وتعالى أتكيه لساء وجزاكم الله خيرا
haatana waxaynu soo gaarnay qaybihii aan u gudbin lahayn su-aalaha dadweynaha ay weydiin lahayn mashaaikhda balse marka hore laba su-aalood oo halkaan noogu timid aan weydiin doona insha allah sheekh saa'ilkan waxay leedahay waan ku salaamay salaan kadib waxaan ahay gabar uur leh 3 bilood ah waana matagaa haba ugu darnaatay markaan cadaysanayo haddii aan gaajoodana waan qabatoomaa waxaan jeclahay in aan soomo ka faa'iidaysto fadliga gooniga ah uu leeyahay bisha barakaysan ee ramadaan maxaan samayn karaa bismillahi rahmaani rahiim nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiidka Anas bin Malik bin Ka'bi Abu Dawud iyo wariyeen waxa uu leeyahay dumarka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ilaahay wuxuu ka dajiyay soonka inay iska afurto way gabadhaas ruqsada iyo fududaynta ilaahayna inay qaadato diinteenna maxaasinteeda waxaa ka mida waa diinu taysiir maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj iyadoo sideedaba u fudud haddana xaaladaha qaarkood hadday dadka qaarkood culays ku yimaado waa laga fududaynaa marka hooyada uur kale ilmaha uurkeeda ku jiraa in nafaqu u baahan yahay ayadiina waa tabar daranta midda nuujinaysa sidoo kale ilmuhu naaska inuu wax ka nuugu rabaa waxa uu nuugayana waa waxay hooyadu qaadanayso ayadiina haddii la nuugayo way tabar daranta shareecadu marka waxay tidhi iska afuraan ha afuraanee maxaa gadaal looga baahan yahay inay qalleeyaan bay culimmadu u badan yihiin hadhow markay jaanis hesho bay qallayn maalmihii ka tegay bay dib u soo celin wax kalena lagama rabo qallaha unbaa laga rabaa marka ilaahay hadduu fudayd ku siiyo ruqso ku siiyo ruqsadiisa in lala yimaaduu jecel yahay sida casiimadaba in loola yimaaduu jecel yahay maaha marka wax laguu fududeeyo in fudaydku uu yahay yacni wax uun aan fiicnayn inuu yahay ma ah fududaynta inaad la timaaduu ilaahay jecel yahay sidaas daraaddeed haddiiba mantag iyo dhib iyo rafaad ay gabadhu la kulmayso ilmaha 3 bilooda inay dhibaata gaadhana waaba dhici karta ha iska afurto kadibna hadhow jaanis markay hesho ha qallayso wallahu aclam saa'ilka kale wuxuu leeyahay sheekh aabahay ayaa 45 sano ka hor agency uu lahaa shirkad sigaar hanti badanna wuu ka sameeyey guryo badanna kadib wuu geeriyooday aniga hawshii meeshii kasii waday muddo markaan waday ayaan ogaaday in ay xaaraan tahay waana joojiyey waxaana shirkadii ka qaatay xaqii aabahay waana ka baxay su-aasha meesha taalla waxay tahay guryihii aabbo sigaarka ka iibiyey way noo kiraysan yihiin oo lacag ayaan ka qaadanaa lacagtaasi ma inoo xalaala bismillahi rahmaani rahiim su-aal baa halkaa iga soo baxdo guryihii aabe tabcay uu ninkaas su-aasha weydiiyey intuu isagu qaatay su-aasheedii aawa isaga laftii shaqadii meeshii buu kasii waday kasab buu ka helay marka inay isku xugum noqotayna ahay jawaabtu waxa weeye allahu aclam aabbaha inuu yaqaanay garanayay sigaarka markuu ka ganacsanayay inuu xaaraan yahay iyo inuu xalaal yahay inuu kala garanayay allahu aclam adiga hadday aqoon darra kuu geysay oodan xugumka garanaynin inuu sigaarku xaaraan yahay waxaana keeni karta dadku inay garan waayaan wadaaddaa u qurxiya wadaadada qaar waxaa jira u fududeeday uu yidhaahda sigaarku waa xalaal qaadku waa xalaal oo dad badanoo caamaana isaga xidhan yihiin marka ruuxii hadduusan aqoon lahayn wadaadkii diin ahaan ugu kalsoonaana uu yidhi waa xalaal sidaana uu ku ganacsanahayo wax kaga helay wixii sidaa ku soo galay xalaal bay u noqonayaan
oo khamrada markii ilaahay xarimayay waxaa la yidhi markuu nasku idinsoo gaadho daliilku yimid kadib wixii ka horreeyey oo aad jaahiliinta ahaydeen garanaynin masalada faman jaa'ahu mawcidatu min rabbi fantaha falahu maa salaf wixii hore idinkaalaa la yidhi wixii dambe un joojiyey ribadaa laga hadlay marka waa isku baab wey wixii xaaraanta ku yimaado marka haddaad aqoon darra kuu geysay wixii aad markii aad ogaatay xukunkeedana aad ka baxday wixii aad ka heshay xalaal buu ku yahay wixii aabba aad ka soo gaadheen haddii aan la garanaynin inuu xalaal iyo xaaraan waxay tahay uusan garanaynin jaahil inuu ka ahaa inuu garanayay haddii aan la garanaynin sidaana xoolaha aad ku dhaxasheen waraca iyo xalaal miirashadu waxay keenaysaa inaad iska sadaqaysaan oo xoolaha dhanba wixii halkaa ka soo jeedaba aad iska bixisaan masaalixda iyo danaha guud lagu bixiyo laakiin daliil cad iyo nas cad oo idinka xarimaya maadaama ay suuroobi karto aabba aqoon darra inay haysay haddii taa idaan jawaabteeda heli karaynin xalay xaraan noqon karaan xaaraamna noqon karayaan si qatciya uma dhihi karo xaaraan bay idinka yihiin iska wada bixiya ma lagu dhiiran karo laakiin xalaal miirasho ahaan haddaad u jeedaan waad iska bixin kartaan wallahu aclam wayna idin fiicanta su-aalaha waxaan ku furi doonaa dadweynaha inay weydiiyaan su-aalaha mashaa'ikda inaad farta taagtaan qofkii ugu horeeya jecel inuu sheekha su-aal weydiiyo sidaad u kala horeysaan insha allah waana lidiin qaybin doonaa bismillah assalaamu calaykum sheekh waxaan ku weydiinayaa waxaan ahay nin qaad ka shaqeeya wax alla waxaan haysto qaadkaas ka soo jeeda dad baa afuriya hawshaas ka war qaadku asal ahaan sharciga waa ku xaaraan maxaa yeelay wuxuu dhimayaa waxyaabaha daruuriyatul khamsa loo yaqaano ee diinteennu ay ilaaliso caqliga iyo nafta iyo maalka iyo nasliga iyo taranka intaba qaadku wax uu yeelay xukun ahaan waa xaaraan xoolaha laga tabcado laakiin masaladaadu marka shaksi mucayana laga hadlayo waxay ku xihan tahay su-aashii hore meeshii uu sheeku mariyey xukun ahaan haddaad taqaanii qaadku inuu xaaraan yahay kadibna sidaa adigu aada ugu dhiiratay oo xoolo iyo kasab aada ka samaysay kasabkaasi wuxuu noqonayaa kasab aan bannaanayn buu noqonayaa mar haddaanu bannaanayna dee sadaqo kuu geli maayo haddiise xukun ahaan aadan ogeyn oo jaahil aad ka ahayd waxaa hore aada kasbatay jaahil aad ka ahayd wuxuu marayaa meeshaa hore ee muxuu ahaa sheikhu uu mariyey hadda wixii ka dambeeyana xukunku markuu kuu caddaaday waxaa waajib kugu ah inaad faraha aada kala baxdo haddii allaha wadale ogolaad xukunkii sharciga mar hadduu kuu caddaaday wixii dambe ee yacni qaad ku saabsanna aadan gacan la gelin inaas baan insha allahu tacaala ku gaabinayaa idaafa wuxuu u idaafeynaya sheekhu waa sida sheekhu uu sheegay hal qodob baan ku dari lahaa adigu horta ajir ka heli maysid waa saa sheekhu sheegay maxaa yeele nebigu nasan sida uu sheegay xadiidkiisu waxa weeyaan xoolo xaaraana ruuxii baxsaday ajir ka heli maayo dembiguna isagu saaran yahay waa haddaad garanaysay qaadku inuu xaaraan yahay sidaana ku kasbatay waxaa timid ma iska daayaa sheekh marba haddaana ajir ka helaynin afurintan iyo waxaanaan bixinayo ma iska daayaa jawaabtu waa maya dadka afuri xoolahana bixi
ajirna ka heli maysa. say isu qabanaysaa way ninkan ajir baa laga hadlayaa. horta culays baa saaran, culayska saaran baa u baahan in xal loo helo. marna ajir baad raadinaysaa iyo sad baad raadinaysaa, marna culaysku saaran sidii loo xallin lahaa bay taaganta. adigoo kale xoolahaad ajir ku raanlidi lahayd maaha, laakiin sheekh seen wax u furdaamiyaa, xoolahan seen ugu taliyaa markay timaado baa waxay tahay xoolahan waxaa iska leh masaalixda iyo danaha guud baa iska leh. danaha guud yaa ka mida, masaakiintaa ka mida. bixi marka sii waxa kaa afuri kara, xoolaha ku afuri kara waa masaakiin. dadka aad ku afurinaysa hadday masaakiin yihiin waa dadkii lahaa xoolahaas, way ku afuri karaan. hadday yihiin dad ladan aad afurinaysana waxaad tidhaahdaa war xooluhu qaad bay ka soo jeedaan, isaga taga meesha ku kuma afuri karaan kuwaas, laanna dadkii loogu talagalay maaha. marka meeshii laguba bixin lahaa wey, ruuxa haddiiba uu xoolaha bixinayo meesha lagu bixin lahaa. saas daraaddeed su-aal baa laysuwaadee waxaa la yidhaahdaa ruux xoolaha kasabka xaaraantaa ku yimid, ribada ku yimid, qaadka ku yimid, sigaarka ka soo baxay, haddii sake laga bixinayo ruuxaa sakada ma laga qaadaya? mise qaaraan maalan ummadda loogu adeegahay, madrasooyin lagu dhisay, isbitaallo lagu dhisay, qaaraan ma laga raadina? haa adeer qaaraanka ka soo qaada, sakada hadduu bixinayana ka soo qaada, inta kalena hadduu bixinaya ka soo qaada. hadduu qayb haysto qayb bixinayo, qaybtuu bixinaya diyaarka leeyahay laga soo qaado. maxaa yeelay meeshii loogu talagalay baaba halkaa ah. wallahu aclam. bismillah. sheekhu salaamaya. waxaa weydiin lahaa maama iga codsatay inuu soo gudbiyo su-aasheeda. waa qof xanuunsan oo isbitaal jiifta, dhowr jeerna qalliin lagu sameeyey, marka waa kasoo bogsootay, laakiin soonkii waa ku dhib, marna waa soontaa marna ka tagtaa. marka soonkii lagu lahaa ee badnaa see ku gudi kartaa, ama hadday wax bixinaysa maxay bixin kartaa? ta kale waa wiil dhalinyaro ah, xanuunka waxaa laga qalay eernada ah. marka dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu ka caafimaada ridida ku tahay. marka wiilkaasna maxaa lagu talinaasa? salaam aleykum. bismillaah. xanuun oo dhan isku soo dar. xanuunku waa laba nooc. nooc rajo leh oo in laga bogsoonayo rajadeeda la qabo. dabcan rajadaas waxaa bixinaya waa dadka dhakhaatiirta ee aqoonta u leh, ama curfiga bini aadamka sidaynu naqaano. cudurro waxaa jira aan laga bogsoonin. cudurku hadduu noocaas yahay, ruuxa qaba ee aan la soomi karin wuu iska afurayaa, beddelkiisana raashiin buu bixinayaa. raashiinka la bixinaya waxay culimmadu isugu khilaafsan yihiin mud oo 600 garaam ah iyo intaa labanlaabkeed oo kiilo iyo 200 garaam ah. labadaba culimmadu way qabaan, nisfu saac iyo mud labadaba way qabaan. raashiinkaas isagoo bisil baa la qaybin karaayo masaakiinta inta loogu yeedhay hal mar cuni kara. isagoo caydhiin baa la qaybin karaa oo hal mar baa la wada qaybin karaa bisha, ama waa la yaryarayn karaa, in yar baa masaakiinta loogu qaybin karaa. marka qaabkaasaa loo bixinayaa. xanuunka nooca labaad waa xanuun rajo leh, aan weli laga quusanin. ka noocaasoo kale ah isaga ruuxa wuu iska sugayaa, wuu afuri, wuuna sugi ilaa natiijada ugu dambaysa, ama ilaahay caafiyo oo uu qalleeyo, ama ay soo baxdo inuusan xanuunku rajo lahayn oo markaa raashiin uu bixiyo. marka xanuunka labada qaybood baa loo kala qaadayaa. maamada xanuunsanaysa wixii ka tegay, hadday caafimaadka rajo ka qabtana waa inay sugto. haddii ayna rajo lahayna xukunkii hore way, marka raashiin bay bixinaysa. raashiinka la bixinayana qadarkiisu waa kaa aan tilmaannay, ama isagoo bisil qaybi, ama isagoo caydhiina masaakiinta u qaybi. tiro masaakiina la raba in la siiyo oo loo qaybiyo. wallahu aclam.
waqtigooda muxun dartiis waxaan rabnaa inaan su-aalihii ugu dambeeyey aan jaanis siino oo aad ka faa'iidaysataan iyadoo saacaddu aad ay noogu soo dhowdahay. سؤالي موضوع خيرك أحسن أنا لو قد جاي أنا واحد موضوع قصاب سنين أنا لو قلت برنامج تبع سنين ريال هوشة. السؤال اللي هو سؤال أنا رمضان قصاب سنين. هل سؤال بسيط أسأل أهل الذكر إن كنتم الله تعلمون بالراديو وباي أوكي سؤال هاي. سؤال أنا وقت نيروكم من نوري وكان هذا كيف سؤال ده يعملوا فيديو وحاله يقول يا ري شهادين كان نقطة من فلسطين وقبر مشركة وقال ذلك أمريكا كلهم إن مخاطب النقطة ميرسنا الكشيخي أو على نهرنا يعني قام في جريدة تكي لما في شهادة يقول يا ري نهركي مربوط دمالي لو قصوا النقطة محانيري من كان فلسطين كان مسلم كان قرتي لكن كان مشركات لا هنا قرآن سكولية ولا تكفر المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة نسخة حكاية شيء وهرتها وبحيسها ويقول عيي سورة صحيح كسو دكتي قريش ما دام تلك سهاي ضد أوثان عابدة إلهي هنا الشريك يري معناها أرنتها اسمك حكاسي كساب سنة سؤال شديد وعلم حق شيخهم دي أرنت ساعتها تذكر عيسى إلهي وشيء إلهي هذا وحلا ما نسب بشكل وحين تذكر عن الكتاب هو عشان كذا العلماء كل كذا العلماء كتاب مركا ناقد مقبول سنكر نيكا وسنكر لكن نيكو ساسي وبرنامج مركا أنا تعلم على من الكلام عن وضعنا وأنا كعذر دارت إلى سؤال تهاي كروس أنا موضوع عن قصاب سنوان وقامرك وروان قال لا لقى شو وضعك؟ آيات هورين فصح كفار قريش بيكسو ديكت لكن لفظي هو عام إتكسر إلهي سبحانه وتعالى وحلو ذاتيس ويسوك ليه أما آيات سورة المائدة كترته إلهي سبحانه وتعالى دمركي محصناتك هاي مسلماتك مذكور حلالي سيدوك لو حلاليدين حلالي دمركي أهل كتابك هذا وصناد الليدين حلالي خديمك أهل الكتاب حوالي ناس الاعتباريين dadkii meesha joogayna ay u ictibaariyeen inay ahlu kitaab tahay waa sax ahlu kitaab gabadha ahlu kitaabkaana nin muslimay uu guursan karaa ninkii muslimkaa uu guursanayay shahaadada iyo markhaatiga aad ka noqotaana insha allahu tacaala wax dhiba male jasaakum allah khayr aan ku daro ishkaalka ah dadka hadda maanta jooga ahlulkitaab ma yihin jawaabtu ahaa hadday kiniisadda gelayaan ama macbadka yahuudda gelayaan mabaadi'dii kitaabkan ay qalloociyeen asalkiisuna injiil ahaa ama towreed ahaa asalkiisu laakiin ay qalloociyeenna ay rumaysan yihiin sidaana ay ilaahay iyo aakhara iyo ku rumaysan yihiin rusushii marka laga reebo nabigeenna sal lla alay wasalam oo ay diidan yihiin marka laga reebo yahuud oo nebi ciise diidan adiga wax weeyaan ahlulkitaaba weli way yihiin maxaa yeele xilligaa diintu soo degaysay qur-aanku soo degayey ahlulkitaab weeye lalahaa dumarkooda la bannaynayay gowracooda la bannaynayay xilligaa laftiisaba waxay lahaayeen ciise waa ilaahay bay lahaayeen oo ciise waa wiil ilaahay bay lahaayeen qur-aankaa sheegay soo maha ayagoo tabtaale baa haddana yidhi waa ahlulkitaab axkaamtaana la siiyey gaalada kaga duwan yihiin oo ay kaga sokeeyaan marka laakiin mid baa u baahan in la baraarujiyo waa laba qodob qodobka hore
reer galbeedka mujtamacaadka maanta ku nool intooda badan kirishtan maaha, waa mulxidiin, wax diina ma leh. waa daraasaad rasmiya oo iyaga laftoodu sameeyeen iyo tirakoob la sameeyey. inta diinta kirishtanka sheegataay baa ka yar inta aan diinba lahayn. qodobka horta baraarug buu u baahan yahay dadkan inay yihiin dad kiniisadda ku xidhan oo kirishtan ah. qodobka labaadii waxa weeyaan naagta kirishtanka ah ee la guursan karo qur-aanku shardi buu u dhigay oo tuu sheekhu sheegay waa inay muxsano tahay, naag dhowrsoon waa inay tahay. reer galbeedna maanta naag dhowrsoon in laga helaayo yaa waa adag tahay soo maha. haa saas wey, 4 jir bayba ku bigra jabinayaan iskuulka iyadoo naasariga dhiganaysa bayba ka faraxalanayaan. marka dhowrsooni waa shardi qur-aanku u dhigay. sharti kalea meesha ku jiro oo marka dumarkooda la guursanayo culimmadaa ku daro waa inayna meel ayaga haymano iyo awood ay ku leeyihiin oo berri carruurtaada ay qaadan doonaan waa inaysan ahayn. taana lagama badbaadi karo sistamka dhan ee waddanka ka dhisanba naagta kaa xoog badan soo saas maha. ama gaal ha ahaata muslimada ha ahaatee ilmahaaga berri aad dhali doonto kiniisadday la aadi doontaa nuuna ma dhihi karti. arrintaasina iyadana tixgelin bay shareecadu siisay. shuruudahaasi dhulkaasi kama jiraan, saas daraaddeed yaan laga guursanin. ninkii guurkiisii ma asaxay iyo markhaatigii ma asaxay iyo sheekhaa ka hadlay ka daba tegi maayo. laakiin warkaa waxaan ka yaabay rag dhallinyaraha inay ku kadsoomaan oo yidhaahdaan gabadh cad baan raadinayna. marka hawsha saa uma fududaa lagu baraarugo, wallahu aclam. waxaan doonayaa 2 su'aalood inaan weydiiyo culimada. 2 su'aalood baan rabaa culimada inaan weydiiyo. midda ugu horreysa ay tahay axkaamta soonka. sheekh wuxuu ka dhawaajiyey 2 qof oo isu galmooday in ay soomayaan 60 bay 2 bilood oo israacsan oo isaga jif. 2 qof miyaa laga rabaa mise ninkii baa laga rabaa? haddii su-aashu tahay 2 qof baa laga rabaa, gabadhii ayadoo 60 bay wado haddii caadada ku dhacdo xukunkeedu muxuu yahay? taas waa su-aasha koowaad. su-aasha labaad sheekh barak allah, waxaan ugu soo wajahan zakaatulfitr. qoysku waxaa laga yaabaa inay gabadhii uurka tahay, cunuga uurka ee mise 3 bilood mise 4 bilood mise 9 bilood joogo, zakaatulfitr ma laga bixinaya? allahu akbar. assalaamu calaykum. waa qaybsanaynaa. midda hore anaa ka jawaabi, toddobana sheekhaan u daynay. midda hore oo ku saabsan ninkii haweenaydii iyagoo soman isu galmooday, ninka la garay in kafaaro lagu leeyahay, laakiin islaanta ma lagu leeyahay? iyada wax ma laga rabo? waa masale khilaafiya ah. waxaa loo kala qaadayaa 2. islaantani inay tahay mukraha iyo inay tahay mutaawica. mukraha waa inuu qasbay, xoog kaga qaatay, yaa feer iyo faralaab buu kaga qaatay, xoog buu u sheegtay, awood mayna lahayn. taa waan ka soo hadashlo waxaan nidhi xataa soonkeedu maba jabayaba, soo maa in kafaaro la saaray iska badaaya. midda labaad waa mutaawica, waa haweenay ogolayd hawshana iyo shaqadana wax ka qabatay. waxaaba dhici kartaba inay iyadu bilowga lahayd, waa iska suuroobi kartaa soo maa. tan noocaasoo kale ah mutaawica la yidhaahdaa. ayada kafaaro ma laga rabaa mise lagama rabo baa laysku khilaafsan yahay. fuqahadu 2 ra'yi bay qabaan. qola way ku laaziminayaan sida ninkoo kale ay ka dhigayaan, qaarna waxay leeyihin waxba lagama rabo. ra'yigaa dambo inaan waxba laga rabin imaamu shaafici baa maray, waa madhabka shaaficiyada, waana sida xooga badan inaan waxba lagu lahayn. maxaa ku tusay inaan waxba lagu lahayn?
lianna nebigu sal alla alay wasalam ninkii xaaskiisa u galmooday markuu ku yidhi kafaara lagaa rabaa xaaskaagana waa laga rabaa ee gaadhsii ma dhihin maba soo qaadinba nebigu xaaska salawaatu rabbi wasalaamu caleyh shareecaa degaysa soo maa sharci baa la jidaynaya haddii haweenayda laga rabo kafaaro lagama aamuseen ee isagana waxaa la dhihi lahaa xaaskana gaadhsii iyadana waa laga rabaa soo maa daliilka ugu weyn waa aamuskaa nebigu ka aamusay sal alla alay wasalam sideedabana ruuxa shay baa ku laasimaya marka la leeyahy waa in daliil la helo waa in aayadii ku laasimiso ama xadiid nebi ku laasimiyo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaan la haynin ruuxa wax la yskama saari karayo saas daraaddeed imaamu shaafici madhabkiisa masaladaa ku xoog badan oo ah inaan haweenayda ayada wax kafaara a laga rabin xataa hadday mutaawica tahay oy ogolaansho ay wax ku samaysay wallahu aclam. masalada labaad ee ahayd ilmaha yar ee uurka ku jira sakaatulfidrigii ma laga rabaa? bacdu salaf baa sheegay, laakiin sida raajixay waxa weeye habeenkaa qoraxdu markay dhacdo bishiina la arko intii joogtuunbaa sakaatulfidrigu uu ku waajibaya. labiyo dhadig muxuu ahaa ilmo yar qof weyn shardigu addoon ha ahaado intaa joogtuun buu ku waajibayaa qoyska intaa joogta. ama ilmaha yar ee muxuu ahaa caloosha ku jira bacdul culamaa way sheegeen, laakiin sida raajixay waxa weeye intaa joogta ayuunbaa sakaatulfidriga uu ku waajibayaa. wallahu aclam. intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeeni kelimada culimada iyo kulanka ramadaanka. waxaan aad kaga mahad celinayaa sheekh cabdiqaadir booba iyo sheekh maxamed cabdi umar. aad iyo aada umahadsantiin sida wanaagsan aa nooga ajiibteen codsigeeni. barnaamijka kelimada iyo culimada kulanka ramadaanka waxaa isku soo dabariday ustaad maxamed nuur shire. dhanka farsamada iyo kaameradana waxaa inaga caawiyey maxamed filibiin, cabdiraxiin darbo, bataan iyo maxamed jakis. waxaan idinla socodsiinayay anigoo cabdiraxmaan sin xarislah. intaan markii kale ku kulmi doono kulankan oo kaleeta waxaan idinkaga tegaynaa ramadaan mubaarak.